بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن إلهانتي بمالك الصوت نقدر عونيسان داودياش قيمها يقدرنت مضنون كسر دواء قيب كلا وكبد برنامج كيجي مرت الشرف برنامج كمرت الشرف أنت بدن سيدا مقعد أكيد من كرتان وحن أنت بدن كورة يسمع ضد مهمة أو بوشلة كبد الصومالية مالك الصوت يجوا كواسي أو فريمو حمبارسن فريمها سيدا دوني إني لو ذاقان شعب الصومالية فريمها سيدا كوا شعب الصومالية garashadooda maskaxdooda way aragtinimadooda iyo ilbaxnimadooda wax ka taraya sidaas darteed dalkani koonfur Afrika ay joogno oo Soomaali tira badan ay ku nooshahay ayaa waxa maanta barnaamijkani marti igu ah nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Khaliif Maxamed oo ah qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida koonfur Afrika waxa uu madax ka yahay ama uu yahay gudoomiyaha ururka jaaliyada Soomaaliyeed ee koonfur Afrika ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SASA ama afka qaar lagu yiraahdo Somali Association of South Africa laantiisa gobolka Western Cape Cabdiqaadir waxa uu ka soo shaqeynayay arrimaha bulshada iyo gaar ahaan hoggaanka shacabka Soomaaliyeed ee koonfur Afrika ku dhaqan gaar ahaan magaalada Cape Town iyo gobolka Western Cape muddo aad u tiro badan Cabdiqaadir ku soo dhaw barnaamijka marti sharaf aad ma santahay iyo dadka daawadayaasha ah inta aad ma san Cabdiqaadir waxaan fadhinaa mid ka mid ah xafiisyada Somali Association of South Africa SASA mudane Cabdiqaadir waxaynu fadhinaa mid ka mid ah xafiisyada Somali Association of South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town xafiiskani waxa laga maamulaa xarun waxbarasho oo ilaa 100 arday ay dhigtaan oo fasaladeeda hadda aysan naga fogeen waana mid ka mid ah mashaariicda tirada yar ee xagga waxbarasho ee South Africa ka jira oo Soomaalida ay gacanta ku hayso oo aan muddo hadda ka hor aan laga fikiri karin oo suuragal aysan noqon bal noo faahfaahin mashruucaasi waxbarasho xafiiskan waxyaabaha lagu qabto uu ka mid walaalo horta aad iyo aad u mahadsan tahay su'aasha ay weydiisay aad bay muhiim u tahay bulshada Soomaaliyeed ee Western Cape qaasatan joogto iyo Cape Town iyo South Africa in arrinta awaatay u baahan tahay mashruucan waxa laga fikirayay oo la qaban qaadanayay oo laga baarandegay muddo ilaa iyo adiga 2 sano iyo bar ah shaqo badan bay u baahnayd hawshan hawl fudud ma ahan waddankan aan joogno waddan kala dambeyn iyo maxaa la dhihi jiray iyo nidaam leh waddan waxa rabta iska sameyn karto oo inta iska soo gudo subax waaga markuu bariyo iskuulada iska furayso waxa rabta iska qabsanayso ma aha wuxuu u baahan yahay waxyaalo fara badan muhiimadda iskuulku uu leeyahay waxbarashada uu ummadda Soomaaliyeed u leeyahay aad baan u garanaynaa markii aad dib u fiiriso mustaqbal maxaa la dhihi jiray background ahaan ama yani meesha Soomaalida ay ka soo jeeda asal ahaan xagga waxbarasho markaan u fiirino Soomaalida xagga waxbarashada aad bay waagi hore dawladda ay jirtay intaan wax ka horeeyay aad bay u leedatay markii ay qaxday wadamo dunida kamid ah ay tagto far badan waxa dhacday in ay ku rafaaday ama ay dhibaato ka soo gaartay xagga luqadda qaasatan xagga luqadda waayo waddanka aad tagto ama waxa lagu hadlaa Ingiriis ama waxa lagu hadlaa Faransiis ama German ama Norwegian ama Swedish ama waxa rabta dhe wadamadaas oo dhan oo luqadaha lagu hadlo ninka uu Ingiriis yaqaano waxa u baahan tahay in wax badan fahmo haddii laakiin aad Ingiriis garanaynin haddii luqadda qaaska ah oo ay leeyihiin dad qaas ay leeyihiin oo luqadda hooyo loo yaqaano xagga afka qaad mother tongue lagu dhaho haddii aad ku hadasho macdo xagga ka sii jirta Ingiriiska aad taqaano baa muhiim ah maadaama Ingiriisku uu yahay luqadda ugu horeyso ee dunida aan hadda ku noolnahay marka maadaama aan anaga ku fikirnay inaan iskuul furno oo ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyno waxyaalaha nagu dhaliyay waxaa ka mid ah bacti hadda ka hor la sameeyay oo bactigaas baaris la sameeyay hadda ka hore oo natiijada ka soo baxday ay ka mid ahayd ummadda Soomaaliyeed oo ku dhaqan qaasatan Western Cape in ay dhibaato luqadda darteed ay u qabaan darteed ay hataa maxkamadaha dambiyada laga galo laga tuuro kiisaska ama dacwooyinka ay dadka dhibaatada u geystaan ay ugu qabsadaan
sababta oo keenaysa ay tahay ninka Soomaaliga markii la dhaco ama dhaawac la soo gaarsiiyo oo booliska ay timaado oo meeshii booliska ku soo ordaan waxay sida badan sameeyaan waxay furaan file ama docket oo ah in la ogaado qofka sida wax u gaareen yani dhibkii qofka soo gaaray dhibkii asaga ahaaba qofkii statement laga qoraa statementkaas oo macnaha qofkii oo la weydiinayo wixii gaaray qofka maxaa la rabaa marka inuu sharaxo meesha wax ka bilowdeen qaabkay wax u dhaceen sida u bilaabatay siday ku dhamaatay inuu sheego uu waxba ka tegin waxbana ku darin yaa la rabaa sida sharciyan waa sidaas marka qofkii hadduu uusan luuqada garanaynin wixii sida u dhaceen sharaxaad inta kasoo bilaabo meesha ugu horreysay oo qisada ay ka bilaabatay ilaa meesha ku dhamaatay ma samayni karo oo luuqada ciidaysa sidaa darteed ninkii booliska u yimaadana wixii ninkan uu sheego unbuu ku qorayaa waraaqda ayada oo kiiska ugu furaayo tii marka waxay keenaysaa inuu qofkii uu qoro statement daciif ah oo macnaha jilicsan oo aan tabar lahayn xoog aan lahayn statementkii yaa markii qofkii dambiilaha ahaa oo dambiga qofkii Soomaaliya ka gala markii lasoo qabto maxkamadda la tago statementku uu fiirinayo inaga garsoorka ah oo maxkamadda xukunka ridayo statementkii markuu fiiriyo statement daciif ay noqonaysaa waxaan qof xabsi loo gelin karin ay noqonaysaa statementkii markuu fiiriyo marka waxay noqonaysaa kiiskii in qofkii dambiilaha aana bail lagu shidaayo bail oo marka iyada noqonayso lacag damaanad laga dhigo kadibna kiiska kiis daciif ah oo aad maxkamadda aysan iskugu mashquulin uu noqdo marka waa dareemi kartaa luuqad la'aanta dhibaatada ugu weyn ay ku hayso Soomaalida khaasatan ku dhaqan Cape Town iyo South Africa waa runta xagga ganacsiga iyadana waa dhibaato kale waayo dadka hadda laga dhex ganacsado sida badan waa dadka wadankii midabta koorkii uu ka jiray meelaha tuulooyinka ah sida badan deganaa oo dadka wadanka ugu tira badanna hadda ah laakiin ayaga laftigooda waxbarashadii waagaa jirtay mid midabta koor ku salaysan ay halka ma ifaaidaysanin Soomaalida wax weyn ma dhaamaan laakiin wadankooda ay joogaan luuqadooda hooye ku hadlaya Soomaalida marka waxay ku yara ceematay xoogaa wadad luuqadaha qalaad inay bartaan u fudud oo inay fahmaan u fudud afkii marka hooyo oo dadka wadaniga ay ku hadlayeen wax badan oo kamid ah ay Soomaalida barbaatay si fiican uma hadli karaan laakiin in ay ku ganacsadaan bay barteen intaas ayada marka in oo dhaafsiisan tuulooyinka ma ah wax weyn kuma tarayso waayo xafiis tageysa danaad ka yeelanaysaa dhibaata ku gaaraysa lawyer qabsanaysaa lawyer qabsato wuxuu baahan yahay inaad Ingiriis ku hadasho inaad u sharaxdo wuxuu asaga ku sharaxana aad fahamto tii ayada marka dad luuqada garanaynin waxay keenaysaa in lawyer kan wax uu sharxi karin adigana aad u sharxi karin xitaa isbitaalada iyo sharciga isbitaalada waa qayb kale oo kamid ah ayagana luuqada meesha kaga dhiban yihiin isbitaalada kale hadda ninkii isbitaal aad oo Soomaaliya oo shakhsi ah oo ama asagoo dhaawac la geeyo hadduusan luuqada garanaynin waa dhibaato asaga naagii ama raggii naaska ahaa isbitaalka shaqeynaya dhakhtarkii daaweyn lahaa isma fahmayaan isfahamka adduunka wala socda taasna waa dhibaato waxaa kaloo dhacdaa sida badan meesha cliniga ah oo isbitaalada day hospitalka loo yaqaano ama isbitaalada caadiga ah oo kuwa waaweyn oo la saxda aan ahayn isbitaalka inta la tago qofka laga daaweeyo ka tago oo day hospital loo yaqaano haweenka Soomaaliyeed oo carruur wataan sida badan taga ama ay wax ma sameey taga luuqad la'aan darteed marar badan waxay keentaa inaan la caawinin marka luuqad la'aantan ay Soomaalida sida badan haysato dhibaatooyin fara badan oo baan bay ku haysaa marka waxyaalahaas fara badan oo baaritaan lagu soo sameeyay oo cilmi baaris lagu sameeyay waxay dhalisay oo anagana nagu dhalisay inaan iskuul furno oo bulshada ka kabno dhanka luuqada iskuulkii waan furnay dad badan oo baahida luuqada qabaajimid Soomaalida dhigato way fara badan tahay ma sha Allah ilaahay ha u fududeeyo hadda waxaan filayaa waxay maraysaa inta ay dhiganayaan ilaa 5 bilood waana lacag lacag oo lacag ku yahay 150 rand iyo qof kala jaabi karaya awoodo lacag aad u yar oo hadii hadda maanta ninkii Saadka joogo garanayo 150 rand waxay tahay ninkii meel kale ka daawanayo lacagta aan garanaynin oo wax lagu quraacdo laguna qadayo inta aan dhaafsiisanayn waxa loo yeelayna waxay tahay sababta lacagta loo jaabi kareeyo dadka loo weydiiyo waxay tahay meesha lagu dhigayo iskuulka waa kira iska raba Soomaali ma laha dawladna nama siina anaga kaleesanay marka aan kira bixin waxaan u baahanahay in at least dadka wax yar ay bixiyaan
ninkaan awoodin lagama qaado dad badan oo hadda dhigtaa jira ilaa 15 gaarayo oo aan awoodin oo annaga aan qaasatan ognahay inay awoodin dadkaas lacag lagama qaado bilaash ku dhigtaa kuwa xanuuna qabaan oo xanuunsan oo shaqaynin baa jira kuwa da oo odayaal oo shaqaynin baa jira dhowr nooc bay iskugu jiraan bulshada qaybo kala duwan waaye oo dhibaato haysato oo dad waxba aan awoodin ah marka qiimahan waa sidaas hadda 80% inuu bilaash yahay ee noqonaysa markii aan iskuulkii furnay dadkii baahida u qabo fara badnaa ay iskuulkii iska diiwaangeliyeen iskuulkii ugu bilowday meel fiican buu hadda maraya sidaan kuu sheegan hadda 5 bilood buu socdaa bishii aan soo dhaafnay oo afaraad yaa waxaa la sameeyey imtixaankii kala barka taamka ama midtermska loo yaqaano yaa la sameeyey haddana waxaa la sameyn doonaa insha allah imtixaanka loogu talagalay muddada 6 bilood ah qalinjebinta loogu talagalay bisha 7 insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo ramadaanka dhexdiisa ilaahay ma yidhi sidaan rajeynayno ramadaankana bishaas noqon doonaa qalinjebintaas kadib bisha 8 insha allah waxaa furmayaa semester ama term ama waqti kaloo cusub oo kii hore kale ah oo 6 bilood oo kale furmi doonta insha allah oo sanadka qaybtiisa kale kaas wuxuu kan kaga duwan yahay hore kan ingiriis bas u ahaa lagu baranayo luqadda ingiriiska kaa waxaan kusoo daraynaa luqadda ingiriiska hore la baranayo sii socon doonto oo sideeda loo baran doono computerra cilmiga computerka yani computer literacy waxaa loo yaqaana aqoonta computereed inuu yani qofka computerka uu isticmaalo asaaska computerka asaasiga ah qofka hadduu computerka asaasigeeda yaqaano wax kalena uu sii baran karo yaa iyadana bilaabayna insha allah حساب بعيدنا على صوتها بعيدنا بردهم إن شاء الله ويا قفنا حساب جرينين جناحنا وقوة ذكيه هذا اللغة الإنجليزية تقام حسابنا جرينين هذا جناحنا وقوة كان هذا حساب تقام إنجليزي جرينين جناحنا وقوة كان لكن اللغة ده أصلا تقامه ونن اللغة بجرنا يا تاي وحقوق باللامين جناحنا وفوضنا مركا إيش السيدة إن شاء الله بإله نكاسيو فيس كلابات أما وجه كلابات مشروع وكاس أو كتلا بقدرهم إن شاء الله wixii halka ka dambeeyana mar walba wixii baahi ah oo jiro yaa ku amal fili doona insha allah oo awoodana ay nafsaha natiijooyinka aad aragtaan 5 bilood natiijooyinka aad aragtaan ma yihiin kuwa la taaban karo oo in farax geliyo aad iyo aad ma sha allah aad iyo aad bay noo farax geliyeen dadkii nala bilaabay markaan bilaabay iskuulka bilaabay oo ilaa hadda dhiganayo waxyaalo fara badan baa iska bedelay waxaa iska bedelay oo number 1 ka ah macallimiinta hadda iskuulka dhigoo kale oo ajnabi Soomaali ma aha annaga maadaama aan jaaliyada nahay oo iskuulkana sameynay waan maamulada nahay macallimiintii iyo ardaydii iyo isku wadnaa laakiin macallimiintii maadaama ajnabi yihiin oo South Africa waliba u badan yihiin ardaydii aan ingiriiska ku hadlin ama qorin iyo ayaga inay isfahmaan ay wax isweydaarsadaan oo ay kaftamaan bay hadda maraysaa heerkaas maraysaa waxaan marka dambe rajaynaynaa insha allah inay dood ka wada qayb qaadan karaan iyagoo ingiriiska wada hadlaya waxaa kaloo aan kuu sheegayaa bishii 5aad waxaa halkan aan ku sameynay xaflad furitaan ah xafladda furitaanka waxaan bishii 5aad ku sameynay oo bishii ugu horreysay u sameyn waynay awooddaanada markaas iyada ma gaarsiisaneyn inaan sameyno xafladdaas waayo xafladda waxyaala badan bay u baahan tahay xafladdii waxaan kusoo bandhignay oo ardaydii ka qayb qaateen waxyaalo fara badan waxyaalaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah in lagu muujiyey dadka da-da oo dadka waaweyn ah oo luqadda baranin oo kale iyo wiilka yaroo hadda soo kace oo jilka cusub ah markii ay noqoto inay isu turjuwaanaan oo odayga oo kale uu xanuunsan yahay nin baa awowgiis xanuunsanaa nin yar buu ahaa oo jilka cusub ah oo iskuulaadka dhigtay awowgiisa xanuunsanaa awowgiis oo kaxeeya dhakhtar buu geeyey inuu u turjuwaano dhakhtarka af ingiriis ku hadlaya wiilka yarna ingiriis ku hadlaya odaygii awowgiis ahaana wuxuu ku hadlaya af Soomaali odaygii marka waxyaalaha uu ku sheegayo uu macnaha ku sharaxayo xanuunkiisa waxaa kamid ahaa habeenkii markaan guriga tago aan seexdo cirkaa la qaado dhulkaa la dhufta ayaa kamid ahayd tii wiilka yaraa oo jilka cusub ah maadaama uusan fahmaynin af Soomaaliga naxwadiisa uusan garanaynin oo ninka weyn oo Soomaali naxwadiisa garanaya markii uu fasirayo inay arrintaas ujeedadeeda tahay in duqan uu xanuunsan yahay odaygan uu xanuunsan yahay cunugii wuxuu ku fasiray
sida ay u yeerto u fasiray direct translation oo sameeyay wuxuu ka dhigay in odaygii la qaado dhulka lagu dhufto oo sax u tahay dhakhtarkii arrintigiideed uu ku wareegay wuxuu dhahay yaa sidaa ku yaala oo af Soomaali ma yaqaan dhakhtarka cunuga yarna dhibaatada haysata waxay tahay naxwadii af Soomaaliga iyo Ingiriiska iyo isku fasiri karin oo naxwadii af Soomaaliga ma yaqaan af Soomaaliga wuxuu ka yaqaanaa inta aska odagana waa dadkii hore oo awgiisu waa wiilkan naxwadii af Soomaaliga uu isticmaalaya markuu ka sheekeynayo xanuun ama dhib ku dhaco kale ereyada adeegsan naxwad ku jirta marka waxay muujinaysaa muhiimadda dadka waaweyn ay leedahay inay iyagu luuqadii bartaan muhiimadda ay leedahay waxay muujinaysaa haa in dadka waaweyn luuqadda bartaan muhiimadda kale muujinaysa ay leedahay waxa waaye in dadka yaryar oo jirka cusub oo Ingiriiska bartaan laftigood inay luuqadda af Soomaaliga u dhasheen oo ay naxwadeeda bartaan si ay labada luuqadood iskugu fasiraan sida saxda ah taasoo inta ka mid ah ku dhigtaan haa waxyaalaha macnaha aan ka dhisno dhalinyarada ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ahaa in odaygii awowga ah xanuunsanaa uu dhahay halkaasa waran laga geliya waa taqaanaa Soomaalida markay xanuunkooda sheegayaan nin haweenka markaa socdo halkaasa waran laga geliya ee dhaha qofkii lagu dhaho oo af Soomaaliga yaqaano oo nin weyna uu garanaya wax laga wado laakiin wiilka yar hadda soo kacay sida hadda dad Ingiriiska iyo Mareykanka iyo meelaha joogo oo ilmo yar ah oo meesha ku koro kale shaatigaadi maxaa soo qaadan wayso kala cunug leh oo shaatiga xaafadu jooga loo jeedo ka wada shaatiga xaafadu ka soo tagay yani uniformki muusan soo xiran uniformki la weydiiyay ama uniformkaadi waa maxaa soo xirmaas uniformkayga xaafadu jooga buu leeyahay loo jeedo ka wada waxa xaafadan ka soo tagay u yeela maana taas oo kale sheegaysa cunuga Soomaaliga ku hadlaya Soomaali sax ku hadlaya marka taa waxay muujinaysaa in waalidka loo baahan yahay inay Soomaaliga ay baraan ilmaha yaryar oo caruurta oo af Soomaaliga Ingiriiska iskuulka lagu bara af Soomaaliga xaafadda lagu baro marka hadda anaga Ingiriiska baan dadka ka dhisaynaa maadaama ay af Soomaaliga ku hadlaan oo ay horaan Ingiriiska u baraneen waa mahadsan tahay waxaan halkaa kaga gudbaynaa qaybta ku saabsan waxbarashada oo sida hadda aad aragtaan Cabdiqaadir uu muujinayo in ay waxbarasho ahayn oo sidoo kale ay barbaarin ku jirta meesha oo wax la baranayo English bas uusan ahayn oo dhaqankii la baranayo oo af Soomaaliga la baranayo oo la baranayo ixtiraamkii dadka waaweynaa iyo waxaasi oo dhan la baranayo iyadoo waxaasi oo dhan xafiiskani laga maamulo oo aad aragtaan haddii Cabdiqaadir aan ka gudubno arrinta waxbarashada walwalka ugu weyn ee Soomaalida Koonfur Afrika haysta waxaa waaye xagga ammaanka dilal baa dhacaa la dilaa haddana waxaaba jirta qalalaase ammaan oo adduunka oo dhan ka taageerinayo mudaharaadyo dhacay wax badan baa dhacay bal ka waran South Africa ma meel isku dila kaliya ama nolol kale oo intaa dhaafsiisan baa jirta sida maxay dilalka u dhacaan oo xaalku siduu yahay hadda halkuu maray su-aashaas waxaan malaynayaa waa su-aal dad fara badan ay jeclaan lahayn inay jawaabtooda helaan khaasatan waliba dadka waddanka dibadiisa joogo aanan South Africa ku nooleen ama aanan kusoo noolaan jirin ama inay usoo taariibaanba laga yaabo oo South Africa niyadda kaga jirto inkastoo basooyinkii hadda ugu dambeeyay oo dhacay darteed aanan filaynin inuu jiro qof ku riyoonayo inuu South Africa soo aado waayo waxyaalihii dhacay TV-ga laga wada daawday mudaaharadii dhacay waa la socotaa South Africa horta waddan weyn waddan aad iyo aad u ballaaran waaye wuxuu ka kooban yahay 9 gobol 9ka gobol gobol walbo waa dawlad gooni ah yani waxaan federaalka Soomaaliya laga sameeyay oo kala waaye maadaama marka ay dawladda ay gobol walba dawlad gooni tahay haddana dawlad dhexe jirta oo isku yimaado dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada awoodahooda qaab u kala qaybsamaan oo wada shaqeeyaan ba jira midda kale oo raacsan waxay tahay waddankan qowmiyadaha ku nool way fara badan yihiin dadka ku nool oo kala midabka ah kala diinta ah kala dhaqanka ah way fara badan yihiin taariikhda waddankanna way dheer tahay oo gumaysigii ee laga soo gudbay midabta kor baa jiray oo asana laga soo gudbay oo muddo dheer socdo lagu raagay midabta korkii muddada dheer qaatay iyo gumaysigii muddada dheer qaatay wuxuu dhaliyay uu ka tagay wax fara badan raad fara badan uu ka tagay raadkaas oo ku leh saameyn badan nolosha dadka waddanka ku dhashay iyo nin walbo yimaado ama qaxooti ha ahaado ama ha ahaado nin muhaajir ah oo waddanka soo muhaajiray
wuxuu doona ha noqdo waxay leedahay raad aad u ba-an bay leedahay oo khatar ah. raadadkaas ayaga ah mid saameyn kula qaxooti keli maaha, dadka wadaniga ay ku leedahay. waxaa ka mid ah in waddankan uu yahay waddanka simaanshaha marka laga hadlo loo siman yahay xuquuqda ay dadka wada leeyihiin, waddanka ugu liito adduunweynaha inuu yahay, wadamada ugu liitaan inuu ku jiro. waxa loo yaqaano inequality, inaysan dadka sineen. maxaysan u sineen? xuquuqaha ay leeyihiin. xuquuqaha ay leeyihin maxaa ka mid ah in wixii waddanka xaq ay u lahaayeen dadka shacabka ah wadaniga ah oo dhan aana nin walba siduu xaq u ahaa uusan u helaynin. waxaa intaa raacsan waddanka waxaa loo yaqaanaa rainbow nation. rainbow waxaa loo yaqaanaa af soomaali ahaan qaansar roobaad. waddan qaansar roobaad ah, qaranka qaansar roobaad. qaranka qaansar roobaad loo yaqaanaa. qaansar roobaad waxaa loo leeyahay yani dad kala midab ah, kala diin ah, kala dhaqan ah yaa ku midoobay oo ku bahooway macnaheeda. marka dadkii noocaas ahaa waxaa hagaa dastuur. dastuurkaas waxaana ka ahan oo dhexdooda ku jira malaha. haddana iyadoo sidaas tahay dastuurkooda uu kala hago oo maxkamad lagu kala baxo, haddana midabta koor ugu jiraa oo iyaga is midabta kooraan, dadka kale ay midabta kooraan. waxyaalahan hadda lagu yeero xenophobia oo kale tusaale ahaan waa yani cabsi ama faquuqid la faquuqaya dadka aanan waddanka u dhalanin. way ku jiraan dadka muhaajiriinta ah, laakiin sida hadda soomaalida oo kale waxay aada ugu saameynaysaa waa dad dhex degan meelihii dadkii tirada badnaa oo waddanka horaan xuquuqdooda la doodsiiyey ay ku noolaayeen oo cabashada qabe oo weli aan la qancinin oo weli raadkii ay ku reebtay midabtakoorkii weli ka xanuunsanayo, weli xarooyinkii ku jira. xarooyinka ku jira waa iska xarooyin, waayo waa tuula. marka tuula lagu leeyahay waxaa loo yaqaanaa ingiriis ahaan township. magaalada asalkana maaha oo weynna maaha, caasimadaha yaryarna maaha, tuulooyinka yaryar oo yaraa dhisanna maaha. waa meel tuulaa jingad baa ku dhisan, jingad baa ku dhisan. guri oo dowladda u dhisto, gurya ay dowladda u dhistaa ku dhisan. RDG baa loo yaqaana. guryahan waa guryo farsamaysan oo raqiis ah oo qaab raqiis ah loo dhisay. Mandela House baa lagu magacaabaa, turkey Mandela ah baa lagu magacaabaa. jingadaa ka dhisan. meelaha qaar biyo fiican hata male, meelaha qaar masquul male, saldhig male, saldhigyo booliis oo fiican male. siyaalo fara badan bay yani macnaha oo dhibaatooyina ka jiraan. waxaa loo yaqaanaa service delivery oo ah yani wixii dowladda xuquuq ay dadka ugu lahaayeen in dadka toos loo gaarsiiyo xaqa u lahaa wadaniga ah iyo sida badan dadka ka cawdaan wayna kacaan. markay kacaan siyaalaha ay u kacaan waxaa ka mid ah dowladda inay ku dareensiiyaan cabashadooda ka mid tahay ay u isticmaalaan. macnaha waxaa ka mid ah inay dadka ajnabiga ah ay boobaan hantidooda, ay dhacaan, oy dilaan, oy gubaan yaa ka mid ah. waxaa ka mid ah inay taageero gubaan oo waddooyinka xiraan oo dowladda meelaha waxyaalaha dowladda ay leedahay ay weeraraan oo booliska la dagaalamaan, waxyaalahaas ay sameeyaan. waxyaalaha kale oo xenophobia kaciya waxaa ka mid ah dad ganacsato ah oo waddanka u dhashay oo ka masiiray ganacsiga soomaalida qaabkay u sameyso yaa jira. oo iyaga laftirka dadka kiciya oo dhahaa dadkan xagga ganacsiga nooga horeeya oo ganacsigeena dumiyey waxaa. dadkaas marka waxay adeegsadaan dadka shacabka masaakiinta oo cabasho cabanayaan ay adeegsadaan si ay danta ay leena u gaaraan, iyagoo u tusinaya dhibaatadooda oo dhan dadkan ajnabiga u yimid ka dhex ganacsanaya inuu yahay. iyagoo u tusinaya. marka siyaalo badan bay dadka u kiciyaan, waxyaalo fara badan bay adeegsadaan. waddankana waxaa waaye nin walba ood wax ku sheegto oo tiraado sidaas u sameeyey ama saas u yeelay caddeena lagaa rabaa. soomaalida arrintaas in badan bay meelo badan ka sheegtay, hay-ada fara badanna way sheegeen oo qaxootigooda, laakiin wax walba caddeyn u baahan yihiin. qofkii asagoo falki ku dhex jiro ama dhex taagan oo muuqaal ah ama maqal ah aa loo baahan yahay. waxaasna sida badan si loo waa iska adagtahay, laakiin waaqac jiro oo la ogyahay wa dowladda marka si arrimaha oga hortagto waxyaala badan arrimahaas darteed markay ogaatay si ay uga hortagto waxyaala fara badan bay samaysay. anti-xenophobia meeshaas bay ugu yeelaan yani siyaalaha looga hortegi lahaa xenophobiyada ama ajnabi nacaabka. dowladda marka qodobka ugu horeeya ku xisaabtanta waxaa ka mid ah isdhexgal, integration in la sameeyo. okay, waan u ogaan doonaa qodobkaas. xagga dilalka iyo rabshadaha waxaa ku saarisay taariikhda uu leeyahay dalkani iyo midabta koorka uu ku reebay iyo midabta koorka raadadka uu ku reebay
iyo meelaha ay Soomaalida degan tahay ee ah meelihii dadka lagu karantiili jiray ee xarooyinka ay ku jireen oo loo ogolay inay banaanka soo baxaan iyo iyagii oo weli adeegyadii dawladii aanan gaarin oo dawladii ka cabanay sida ay ku muujinayaan ay tahay in Soomaalidii iyo dadkii kale ay bartilmaameedka sahlan ahaa ku waxyeelayaan maxaa xal haddii Soomaali ahaan u hadalno oo dhahno Soomaali maxaa xal ah Soomaali waxa ugu horeeya oo xal ah waxa waa inay meelaha khatarta ah oo la isku dilo oo kala dambeyn fiican aysan ka jirin oo halista ah oo dadka cabanaya oo mar walba ka caay ay degan yihiin inay ka xeelaysato ay ka wareegto oo magaalooyinka gasho waa xal waxaa kaloo xal ah in ay dadkaas ayaga integration ku samayso oo ay dhaxgasho dhaxgal marka la leeyahay inay naagaha guursato oo ay khamriga la cabto maaha waa in ay macnaha muujiso inaysan dhibaato inay ku samayso aysan u imaanin oo u timaaday inay ayagana u faa'iideysan ayagana faa'iideystaan oo ay wadankii dhibaato uga soo carareen ay u muujiyaan waxyaalaha la sameynta waxaa kamid ah inay kubadda laga ciyaaro in meelaha ayaga ay ka dhexayso sida publica ah oo shacabka ka dhexayso iskuulaadka mutadawacnimo wax lagu siiyo isbitaalada lagu caawiyo dadka da-da wax loo qabto waxyaala muuqdo oo Soomaali ay qabatay ee dadka markaan waayo dadka kici lahaa oo ku gumaadi lahaa oo ku dili lahaa hantida boobi lahaa waa shacabka marka wixii hantiyada haysatay haddaad wax ka siiso oo ayaga aad wax ku kaalmayso oo wixii wax muuqdo u noqdo afar cun xishowgaaga way xishooni lahayn dadkan way xishoon lahayn dad badan oo dadka difaaca Soomaalida ah oo ay dhaxlo soo bixina Soomaalida dad badan baa difaac noqon lahaa Soomaalida marka arrinta iyada badana waa laga hadlay in badan oo la sheegay hay'ado badan iyo dad badan oo ka hadlay Soomaalida intaas arrintaas in badan kuma ficno ma samayso waa marka dad shakhsiyaad ah oo tuulooyinka ay degan yihiin dadka degan waxyaala ku kordhiyay u sameeyay kooxo ciyaaro u gaday uniformkii iyo kabihii waxa lagu ciyaari lahaa koobab u dhigay isbitaalla iyo iskuulaad iyo dad community oo dhisan iyo jaaliyadaha oo wadanka ay dad wadani ay leeyihiin iyo lacagsi dhis taageere waxaan cabasada ma dadka in la difaaco oo aan la boobin hantidooda dhicin ayaga naftooda aan la badbaadin laakiin tuug wixii la dhihi jiray oo wax dhaco tuugga caadiga ah asaga ama dadka isku dhex dara ama isku dhex darin wax wadanka ka jira waa asaga tuug uu ku dhici wana ku boobi laakiin tuug asaga wax ma boobay wax uu dhacaa qoro li yimaada ama uu dili ama wixii lacag uu ka helo qaadani mid labada mid muu samayn hadduu ilaahay kaa badbaadin laakiin haddii tuuggii aad boolista la shaqayso dadka shacabka ahana ay ku jecel yihiin oo aad kasbatee oo ay kula shaqeeyaan tuug ayaga dhexdooda ka yimaadana waxba kuma yeelay mid meel fog ka yimaada mooye marka tuug ayaga dhexdooda ka yimaada waxba ku yeelaynin oo boolista aad la shaqayso tuugga kaloo meel kale fog ka yimaada laftigiis in la xakameeyaa suurta gelaysa laakiin haddii dadkii shacabkii aad kasbanin ayagana way ku boobayin hantidaa way dhacayn tuuggina wuu ku dheeryahay iyo dilkii kale wuu ku dheeryahay mana ku noolaan kartid meesha arrinta marka Soomaalida ay weli wax ka bedeli lahayd oo aniga aan aaminsanahay haddii wax laga bedeli lahaa in tuulooyinka lagu noolaan karo waa arrinkaas waa shakhsi haddii wax ka bedelo hataa kuwa kale saameynaysaa haddii tuulo kale ay kugu dhow dahay 3-4 tuulo ay kugu dhow yihiin oo 3-4 tuulo la soo boobo هذا لفتك هذاك اللي قاعد يعلم ويسول كل كده وايو هل شخصي ما بدبادة هذه ذاتك هي بدبادة وحنا كلا الصومال الصومال كيف حكم ده هنا ذاتك لكن هناك تسطو لما هناك ما حكم ده إن ذاتك أي وجههم عاي أفلقادو كعنقال قبل دمر كودو الوسط جامو دمر كودو الوسط جامو ننكي نن حمان وهذا الحميصو ويعني صار الحميني وحو كعبنا أضام كقن عنبا وحو كعبنا يقول لك إيش وضن كنولية درس كلية أسير أود كهذا ماشي ما كان أود ضرب أديك أنا أنا مصلحة هذا مرتب رك فرق بين الصومالية أساسا ما والله رك هل حبة أو تشيبس أو جو كنت سنتي أما 50 سنت معنا وضع مرة 50 سنت واحد ولا كان إن نم لعارة لودرو والله رك إنك سيدا سمينا مصلحة كموت لأن الصومالية مدة ماشي دقن بس الحظ بابي هذول شيبس كأسكت أفرها وفرق غدا لقف كاس وقف وحكى عرّ أو عم عرق أنا قف
wadani عضو ما نقول chips كاس حوم ما نقول 50 cent حوم ما نقول يعني دمت وليه كون markaan waxaan leeyahay koow dadka inaan ka soo labo dhaqan wanaag in la tuso saddex booliska iyo dadka amniga ka shaqeeyo in lala shaqeeyo la dhaxgalo afar hadday intaa shaqeyni waayaan in laga xeeladaysto oo laga baxo tuulooyinka in yar koox la iskugu tago magaalooyinka weyn la galo ganacsigan informalka ama ganacsiga aanan qaabaysnayn ama aanan ganacsi sare aan ahayn laga weynaado laga baxo la galo formal business yani ganacsi qaabaysan oo sharciyeysan oo dawladda laftigeed ay ilaalinayso la galo waata ganacsiga ayaad soo hadal qaaday Soomaalida inta badan halkan joogtina waa ganacsataa waxaa jira qaanuun qabiil qoraal ah oo African National Congress ama ANC xisbiga dalka u taliya oo sanadkii hore shirweyne ku yeeshay Mangaoon magaalada ama Bloemfontein ku yeeshay ku soo ansixiyay kaasoo hadda baarlamaanka yaal sharciga maxaa kala socda maxaa caqabada ah oo uu sharcigaasi ku leeyahay Soomaalida iyo wadada sharciga ka hadalno waxa ganacsiga ku saabsan Soomaalida qaasatan Cape Town joogto hal sharci oo qaas ah jira oo aan kuba kale dalka jooga aan la wadaagin Western Cape oo dhan ma aha waa City of Cape Town yani manashibiyada Cape Town hoostimaado manashibiyada Cape Town hoostimaado Soomaali badan ba mooltooyinka ugu fara badan Cape Town isku laayna manashibiyadaas hoos yimaadaan sharcigaas by law ayaa loo magacaabaa by law macnihiisu waxa waaye sharci hoosaad dawladda hoose kan adiga hadda aad ka hadashay oo guud oo kan heerka qaran ah kaasna wuu jiraa kaas business bill buu hadda taagan yahay business bill waa sharci ganacsi ah oo laakiin la qore oo qabiyo ah oo wali aan ansixin markii la ansixiyo wuxuu noqon doonaa business act hadduu noqdana sharci diiwaangali oo dawladda u diiwaangalay oo lagu dhaqmi doono cidna diidi doonin buu noqon doonaa kan bayloga kaga bilaabaya kan bayloga November 2012 يا هر Soomaalida si fiican uga heshay baylogan City of Cape Town baa qoreen oo diyaariyeen draft marka hore ahaa December draft waa yani wax qoran oo aan la ansixin buu ahaa hindisu ah laakiin 2013 March bisha saddexaad iyo dhaqan galay intuusan dhaqan galin ka hore bishii 2012 markaan ka war helnay waxaan qaadnay olol aan kaga hortagayno sharcigaas inuusan dhaqan gelin waan ku muujinayno cabashadaanada annagoo markaas garabsanayno ganacsata wadani aniga markaas jaaliyada ku socday anigoo ka tirsan qaybo kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed ka tirsan odayaasha ay ku jiraan oo culimada ay ku jirto oo jaaliyada kala Soomaaliyeed ay ku jiraan ilaa 10 qof baa la xulay oo Cape Town la xulay 10 qof waxa lagu talagalay inay sharcigaas ka howlgalaan maxaa ku qoran sharciga oo problematic ah ama dhib ah sharciga wax ku qoran ugu horeeyo horta oo laba qodob yaa ugu daran labada qodob ugu daran Soomaalida toos u taabanaya ganacsigeeda toos u taabanaya labada qodob midka koowaad wuxuu leeyahay ganacsiga aad leedahay ma dhaxseexan kartid taasoo ah waxa ay Soomaalida samayso taas oo Soomaalida waxay ku nooshahay oo nin walba ganacsigiisa u dhaxseexdaa oo nin guri leh oo hadda intuu guri u hoydo ganacsigiisa hadana imaanaya ma aha goobta uu kireysto oo ganacsiga u dhaxseexdaa qaasatan dadka tuulooyinka degan waa yani marka Soomaalida ganacsatada leenahay aan kala saarno kuwa magaalooyinka waaweyn degan ganacsigooda way xiraan wayna ka garbadan xaafadooda aadana xaafadaysa laakiin kuwa tuulooyinka degan oo waliba ganacsiga Soomaalida ugu badan maanta ay tahay dhibka ugu badan uu ka jiro way dhaxseexdaan sababta dhaxseexdaan waxa waaye guriga u galbadan oo gooni ah ay samaystaan horta ganacsigooda waa la tabsan alaabtooda waa la qaadanay si marka ganacsigooda u badbaadsadaan u ogaadaan wax ku dhici lahaa waa inay dhaxseexdaan waa ilaashanay taasoo marka dhan kale laga fiiriyo naftooda qatar in badan gelis taasoo in badan qatar naftooda gelinayso waa runta marka tii ayada waxaa sharciga u dhigaya inaan qof ganacsigiisa dhaxseexan karo uusan jirin inaan ganacsigaada xirto guri aad ka aad ay tahay kow qodobka soo qodobka labaad wuxuu qorayaa saacada
ganacsiga la samayn karo uu xadidaya saacadaha meeqa saacado soomaalida sidaad ogtahay ba hadda aad ka warayso subaxii dukaanka soo furan aroortii habeenkii ilaa 5 saac 6 saac qaar 7 saac iska gaaraan jira waa 18 saacadood oo shaqo oo toos ah oo aan nasanaynin oo joogto ah oo sabti axad lahayn on holiday lahayn fasax lahayn 360 maalmood sanadka ku jira toddoba maalmood toddobaadka ku jira si toos ah 24 saac oo maalinta ku jira 18 saacadood يعني ما جرت مال سال سوالف سأوش بس نيجي ما فلاه وماشين